kale qaar kamid ah warbaahinta wadanka Mareykanka ayaa warinaya in gabadha Soomaalida ah ee Ilhan Omar loo magacaabi doono wasiirka amniga ee wadanka Mareykanka inkastoo ilaa iyo hadda aanay si dhab ah loo xaqiijin in Ilhan ay noqon doonto wasiirka amniga ee wadanka Mareykanka haddana waxaa jirta qaar kamid ah warbaahinta Mareykanka oo xogtaasi helay sida ay shaacinayaan qaar kamid ah warbaahinta waaweyn ee ku yaala wadanka Mareykanka Ilhan Omar oo ahaa xildhibaanad isla markaana ka tirsan aqalka Congress-ka ee wadanka Mareykanka soo gashay dhinaca xisbiga dimuqraadiga ayaa wararku waxa ay tilmaamayaan in si weyn ay ugu dhowdahay madaxweynaha la doortay ee wadanka Mareykanka Joe Biden waxaana xusid mudan in Ilhan si weyn ay uga ololeysay in uu ku soo baxo madaxtinimada wadanka Mareykanka Joe Biden haddii Ilhan Omar loo magacaabo wasiirka amniga ee wadanka Mareykanka madaxweyne Joe Biden waxa uu jibinayaa rikoor cusub isagoo oo ku xigeenkiisana ay tahay qof dumar ah isla markaana waalidiinteedu ay soo galooti ku ahaayeen wadanka Mareykanka haddii tallaabada kale uu Ilhan Omar uga magacaabo wasiirka amniga ee wadanka Mareykanka taasi waxa ay ka dhigan tahay Mareykanka oo waji cusub yeeshay inkastoo ilaa iyo hadda ila lagu kalsoonaan karo aanay xaqiijinayn in Ilhan Omar xilkaasi loo magacaabi doono haddana waxaa jira tuhun weyn oo ku saabsan in Ilhan mar kale ay noqon doonto taariikhda wadanka Mareykanka marka laga reebo Kamala Harris oo iyadu waalidiinteedu ay soo galooti ahaayeen oo hadda ah madaxweyne ku-xigeenka wadanka Mareykanka madaxweynaha la doortay ee wadanka Mareykanka Joe Biden ayaa markii uu u loolamayay xilka madaxtinimada ee wadanka Mareykanka waxa uu sheegay in dumarka uu il gaar ah ku fiirin doono isla markaana maamulkiisa ay kaalin muhiim ah ka qaadan doonaan oo durba fuliyay ballanqaadyadiisa ahaa in dumarka uu kaalin muhiim ah ka siin doono maamulkiisa oo waxaaba ku xigeen u ah haweeneyda la yiraahdo Kamala Harris oo ah gabar madow ah haddii golaha wasiirada ee Mareykanka uu soo magacaabi doono madaxweynaha dhawaantan la doortay ee Mareykanka Joe Biden ay markaas u bataan dumar waxaa suurtagal ah in wax badan ay iska bedelaan siyaasadii wadanka Mareykanka iyadoo oo dumarkana ay yeelan doonaan rajo aad u wanaagsan oo ah in ugu dambeyntii ay ku guuleystaan kursiga ugu sarreeya ee wadanka Mareykanka ee aqalka cad inkastoo taasi ay aad u adag tahay Ilhan Omar waxa si weyn markaas looga hantaa in ay isku dhow yihiin madaxweynaha la doortay ee Joe Biden iyo qaar kamid ah la taliyaashiisa waxa kale oo xusid mudan intii uu murashaxa madaxweynaha cusub ee wadanka Mareykanka Mr Biden la taliyaashiisa qaar ay yihiin dad Soomaaliyeed Biden waxa uu sheegay in Mareykanka la wada leeyahay balse aanay lahayn cid gaar ah isagoo oo hadalkiisa inta ku daray in xukuumadda wadanka Mareykanka iyo guud ahaan dalka ay wax badan iska bedeli doonaan haddii uu aqalka cad isagu fariisto waxaana muuqanaysa in Joe Biden uu qaaday tallaabo naadir ah oo Mareykanka aanay horey looga baran fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena saar subscribe si aad u daawato xog walba halkan soo dhigno